hooyo Soomaaliyeed oo hore looga qaatay 7 caruur dalka Sweden ayaa shalay markii ay dhashay kii 8 saacad gudahood laga qaatay cunugii ay dhashay. Hooyo Faadumo Buraanburtay ayaa markii ay gabadha yar umushay laga qaaday saacad gudahood iyadoo ay kala wareegeen deegaan ay hore uga soo guurtay mas'uuliyiintii deegaanka. Saara Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Sweden kula xidhiidhay Sheekh Xuseen Faarax Farsame oo kamid ah culimada Soomaalida ee Sweden waxa aanu goobjoog u ahaa sida falka qaadashada ilmaha yar uu u dhacay. marka ugu horeysa walaal Zahra waa maasan tahay waayo intaan arrinka hadlay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa in walaal Faadumo iyo Maxamuud Ilaahay subhanahu wa ta'ala carruurtooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala jamiin Allah u soo celiyo waa sida tilmaamtay waxaa jirtay caruur kale oo maaragtay degmadii ay deganeed looga qaaday kadib waxay u soo wareegtay dhinacan iyo Stockholm waxaa marka jirtay aragti ah in maaragtay ilmaha caloosha ku jira hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nabad ku kala keeno in Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala ilmaha ay haysanayso laakiin shalay ayaa waxa dhacday in maaragtay qolada socialku ay yimaadeen isbitaalka inay maarka gabadheena ay sidaas ku qaateen sababtuna ay tahay warbixino dhinacaas iyo degmadii ka soo guurtay oo ga yimaaday marka cunugta yarta ah oo hadda markaas dhalatay meeqa bari ayay dhalaneed markii laga qaado hooyadeed walaal Zahra huwa kulay waarin xanuun badan waayo saacado ayay gabadhu maaragtay hooyada la joogtay waa dareemi kartaa hooyo fool soo martay ilmihii yaraana laga qaatay إلهي بأن أقبرين بأسماء والصفات العليا إن الله سبحانه وتعالى بدل خير قبل الله سيء عليه وأيوان دريمي كرنا حنوك أي فوشة أي لا هاي يوصيد أي تهي إلهي بأن سبحانه وتعالى أقبرين إنه إلهي سبحانه وتعالى أقرقاره مركا ساعدو أي قبل الدور ساعدو حيل جوكتي إلا إيا ماركتي 10 ساعدو دي إنك بدن marka waxaad iga warantaa dad jaaliyada ka tirsan ma la hadleen xataa qolihii qaadanayay cunugta yarta oo dhalatay markaas ilmihii horeetana dabcan horay u sii haystay oo ma lala hadlay oo xataa ma la xiriirteen adinka walaal Zahra saa sheegtay kollay markii la qaadanayay goob joog baan ka ahaa waan joogay waana meesha ayaan joogay isbitaalka ayaan joogay shaqaalaha ka socdayna kollay waa wada hadalnay qaarkood waxaan u maleynayaa in saacado kala aan meesha joognay oo darteena u joognay laakiin sida iyaga ay tilmaameen waxay sheegeen in maaragtay muxuu ahaa arrinta ka timaaday degmadii ay hore u deganaan jirtay inay maaragtay waxyaalo badan ay soo gudbiyeen oo maaragtay aad u adag kuwaas oo aan rabin inaan maaragtay dhinaca idaacaddan kala hadlo laakiin waxaan isku daynay inaan arrinkaas aan iyaga kala hadlo aan u sheego aan iraahdo waxa wanaagsan in maaragtay waalidka iyo ilmaha in meel lagu xareeyo meeshaasna lagu baaro taasoo aan hore aan u sameynay waa garta hadda marka gabadha caafimaadkeeda waa sidee iyadoo ilmo saacado dhalan maadaama ilmihii yaraa laga qaatay kuwii hore uga sii maqnaayeen aabaha iyo hooyada ciyaalkaas dhaleen dareenkooda waa sidee walaal waa dareemi kartaa waayo qof walba oo maanta maaragtay islaama oo damiir ah xanuunka uu dareemi karo alxamdulillah Allah barakeeyo inkastoo iyadoo ay tahay hooyo maaragtay samir badan dareen ay dareemayaan waa dareen aad iyo aad maaragtay muruga u leh ومع ذلك عليسكي حنونكي هاي أيو ماركتي أرنكانا وزايد وقول نقضي لكن ما دام ضد مسلمين إنه وحنا أقولنا هي قدرت الربانية إلى أين عن كبرينا إن عروضة الله سبحانه وتعالى السعودية سلمان تبع تأكلن بان أنا وأنا لحين والدك إيو كمونك إن شاء الله كل خير بان الله سبحانه وتعالى كرجيننا ووضع هذا المركز نود بلوضي علتنا كما تاجنا ماشي كمون كان هذا منتجنا يو فعل كيف السمايين لكن علته واحدة بس عطها كمون كي يدا دجنا أو أن كمون أدو نكسنا نهين waa garta marka deegaankay hore u deganeed oo ilmaha looga qaatay ayaa keentay in midkay dhashay oo hadda ay ku dhashay deegaankan aad joogtaana laga daba imaado la qaato kaas baa keenay oo ilaa iyo dadka mas'uuliyiinta ugu sareeya khaasatan Sheekh Xuseen aan la hadlay qofkii maanta maaragtay go'aan ka gaaray baan maanta wada hadalnay marka waxaan ku hadaladana ka mid ah ku wada hadalnay maadaama ay iyagu ay yiraahdeen maaragtay muxuu ahaa maadaama aqoon badan anaga aanu lahayn qolooyinka
asna maaragtay xiriirkeena la soo sameeyeen waxaan anagu rabnaa si aan waalidkan iyo annagana aan subarno inaan baaritaan aan anagu aanu sameyno inta sababtoo ah sharci wuxuu dhigayaa isbuuc gudihiis in maxkamadda la aado maxkamaddana kolley waa loo aadayaa marka looyarkii u doodayay iyo arrintaas oo dhan waa ku wada jirnay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa khayr tiro badan laakiin cilladdu waxa ay tahay dhibkuna ka yimaaday magaaladii ay kasoo guurtay tuuladii ay kusoo guurtay ayaa dhibaatadu ay ka timaaday awal arrinteedu kolley sida ay awalba idaacadaha uga hadashay waa rajo fiican baanu qabnay walaal ma garatay hadda ugu dambeyntii kulanaad ii sheegtay inuu dhacay kulanka ma wuxuu dhex maray adinka dhexdiina soomaalida ah iyo ciyaalka waalidkood mase adinka iyo jaaliyadii oo adinka ah iyo sidoo kaleeto dowladii countiga ama deegaankaad degan tihiin ayuu dhex maray walaal kulanku wuxuu dhex maray labada waalid iyo aniga iyo dadkii maaragtay muxuu ahaa mas-uulka ahaa ee qaatay carruurta ayuuna dhex maray hadda marka xal ma laga gaari karaa ilmaha dhibkii shalay loo qaatay mase lagu guuleysan karaa haddaad iskuday samaysaan idinla tahay xaalka alxamdulilah wax walba waa suurtagal kolley wadahadalkiiba hadda maxkamadii way ku khasban yihiin maadaama sharciga carruurta lagu qaato oo iyaga horey u dhigteen waa in isbuuc gudahood ay marka maxkamad ku gudbiyaan maxkamadii bay u gudbinayaan wixii ka dambeeyana waxaa imaanaysa in maaragtay muxuu ahaa waalidkii iyo iyagii ay maaragtay ay xiriir sameeyaan tan labaad waxyaalahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa oo kale in maaragtay muxuu ahaa waalidkan fursad la siiyo in maaragtay carruurtoodii ay maaragtay ay la noolaadaan oo meeshaasna baaritaan lagu sameeyo waxaa laisla qaatay oo kale in maaragtay waalidka iyo maadaama aqoon aan anagu horay aan u lahayn hayse ahayn waxaan rabnaa inaan anagu isbarano laakiin cilladdu waxay ka taagantahay walaal imtixaanka jira iyo dhibaatada jirta waa commuunkii hore iyo degmadii ay deganeed ayaa sabab u ah hadalkaasina waxaa u dambeeyey sheekh xuseen faarax warsame sahre cabdi axmed ayuu u waramayey.